كما طلب سنك تعدل 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 طبعا ملحوبة طبعا وجهك طبعا جرتلو كما كمبر بيت لا جسوت كاكلين طبعا عيدوتي تكون نفتح طبعا جرتلو كما كمبر بيت لا جسوت كاكلين طبعا عيدوتي تكون نفتح طبعا kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba meel walba aad joogtaan halkaad naga dhegeysanaysaan waa idaacadda jowhar shabeellaha dhexe hirshabelle soomaaliya dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii gaarka ahaa ee dooda ee loogu talagalay inaan kaga doodno barnaamijka cudurka covid-19 oo ah cudur safmareena oo dunida saameynba aan ku yeeshay haddaba maanta barnaamijka dhegeystayaal waxaa ku qaadanaynaa ama qodobkeenna barnaamijka aan ku gorfeyn doono uu noqonayaa haddii rabbi raalli uu ka noqdo saameyn intee la-eg ayaa uu ku yeeshay barnaamijka cudurka covid-19 barakacayaasha iyo dadka baahiyaha gaarka qaba haddaba waxaa barnaamijka igala qaybgalaya maxamed cismaan nuur oo ka socda barakacayaasha sidoo kale faadumo ibraahim xasan oo iyana ka socota barakacayaasha waxaa sidoo kale barnaamijka qaybka ah maxamed axmed raagi oo ka socda dadka baahiyaha gaarka qaba iyo isaaq xeer aqiil oo sidoo kale ka socda dadka baahiyaha gaarka qaba sidoo kale waxaa qaybka ah faadumo xuubi cabdi oo iyana ka socota dadka waa baahiyaha gaarka qaba dhegeystayaal barnaamijka sida aad ogtihiinba waxaa iska kaashanaya hay-adda Somali Peaceline iyo idaacadda Jowhar oo si toos ah aad ugu dhageysanaysaan marka hore waxaan bilaabaynaa isbarashada barnaamijka kadib su'aalaha ayaa ugu geli doonaa iyaga oo markaas aan falanqeyn doono saameynta uu cudurka covid-19 ku yeeshay dadka barakacayaasha iyo dadka baahiyaha gaarka qaba waxaan ku horumarayaa oo dhankayga midig fadhiya maxamed cismaan nuur oo barakacayaasha ka socda maxamed kusoo dhawow idaacadda Jowhar bal ku bilow magacaaga iyo in barnaamijka aad ka qayb galayso aad diyaar u tahay oo su'aalaha lagu weydiinayo aad ka jawaabayso بسم الله الرحمن الرحيم مقعيد محمد عثمان نوروي برنامج كان واقع قيب قليا يرنا وحان واحد سؤالي اللي يويدي way aad wanaagsan tahay isaaq xeer aqiil oo sidoo kale asal dhankiisa fadhiya soo dhawo isaaq waan dhawahay runtii waxaan maanta u diyaar garownay inaan ka soo qayb galna barnaamijkan quruxda badan ee soo qaban qaadashay idaacadda Jowhar iyo hay'adda Peaceline runtii waxaan diyaar u nahay in wixii su'aalaha nala weydiiyo qastayo cudurka covid-19 ka jawaabna hadii ilaahay idin aad wanaagsan tahay isaaq sidoo kale waxaa dhanka fadhida faadumo ibraahim xasan oo barakacayaasha ka socota faadumo soo dhawow bismillaahi raxmaani raxiim waan dhawahay faadumo ibraahim xasan waan ka soo qayb galnay barakacayaasha oo nahay anaka ii sheeg kanola faariska inaan ka qayb galno oo waxay nala weydiiyo su'aal oo ka jawaabno aad wanaagsan tahay sidoo kale dhankaas waxaa fadhida faadumo xuubi cabdi kanola faariska waxa dunida dhan ku haya ilaahay hanaga dul qaado aad wanaagsan tahay faadumo xuubi maxamed axmed raagi bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamed axmed raagi oo ka mid ah dadka baahiyaha gaar qaba oo baahida gaarka qaba halkan waa idaacadda Jowhar waxaan ka qayb galaynaa aan ka hadlaynaa cudurka covid-19 ee gobolka shabeellada dhexe aad wanaagsan tahay su'aalaheena ugu gudagalaynaa maxamed cismaan nuur oo barakacayaasha ka socda ku hormaraya maxamed saameyn intee la-eg ayaa cudurkan covid-19 uu ku yeeshay barakacayaasha wallaahi walaalo wuxuu ku yeeshay waxyaabo badan waxaa ka mid ah haddaan ka bilaabo ayada oo dadkii aysan isku tegayn dadkii ayada oon haysan qalabkii iyo waxyaabihii loogu hortegi lahaa aan haysan sidaasay tahay aan laysbooqanayn laysku dhowaanayn dadkii oo dhan u kala shakiyey dhibaatadiisu waa badan tahay covid-19 marka
dadka barakacayaashan xeryaha ku nool oo kale ma qaadanayeen fariimaha ee dhaqaatiirta ay bixinayeen oo cudurkan laga bixinayay in saameyn uu leeyahay oo isku dhawaanshiyaha in gacmaha la dhaqdo kale bal ka waran waa la meertaa gacmaha oo idaacaday ka dhageystaan dadka gaar ah oo soo baxo ku dhex wareego jiyada iyo waxaasuu soo diraana jiro waa laga warhayaa ma cudurkan inuu adduunyada dhan uu saameeyey oo maaragtay hargab xasigaroobay daawo qaadaleen yahay oo dadka baabi'iyey qaxooti ahaanse ummadaasaan wax la qabnaa laakiin dhibaato gaara annagu dad iska jilacsanaanahay oo nagu hayaa layskuma tago gacmaha waa layska mayraa ha isku dhawaanna waa la yiraa oo qabarkiisa waa qabnaa waa aragnay ummadaas adduunka ku nool intuu gaarsiiyey naga gaarsiin ilaahay waa naga yasiray laakiin hergabkaas caasigaroobay waa soxmowno oo maaragtay dhinac walbo dhinaca isku dhawaashadii sheekadii waa la kala wada wiswisay kulli aad iyo aad isaaq xayar aqeelo dhankaaga fadhiya isaaq bal saameyn intee leeg ayaa cudurkan COVID-19 uu idinku yeeshay maadaama dadka baahiyaha gaarka qaba ay ka mid tahay bismillah aad iyo aad umahadsan tahay dadka baahiyaha gaarka qaba cudurka COVID-19 wuxuu ku yeeshay saameyn aad iyo aad u ballaaran sida ninkan odaga igu horeeyay uu ka dhawaajiyay sida isdhexgalkii bulshada kale maxaan dhiilaa ishag dadka baahiyaha gaarka qabo alaaba inta badan wuxuu ku nool yihiin maaragtay dad lugtood ku nool waaye qofkii kuwa ilaa xataa wuxuu leeyahay war coronavirus la sheegay saaxiib uga qaleeyay ani ma ku raacay inuu macluumaadkan ma iqaadsiinaysid runtii saameyn aad u baahsan ayuu ku yeeshay dadka maxalli jiri sheeg baahiyaha gaarka qabo mid dhaqaale iyo mid maxalli jiri sheeg ee bulsho ahaanba saameyn ku yeeshay runtii aad iyo aad ma sha Allah dad badan oo ku dhacayna waa aragnay oo xumad zaa'ida ay qabatay iyo maxalli jiri sheeg shubul maxalli jiri la socdo alxamdulillah walow haddana maaragtay uusan la baabi'in sidii dunida kale ugu galaaftay haddana maaragtay waxaan dareemaynaa ilaa welina aan la daalaadhacayna cunayska uu nagu hayo cudurka maxalli jiri COVID-19 waxaan ka rajaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu naga dulqaado وماسنتا إساق وكوس الله ودونا مركن وحان كورجينيا سبرامسكا يانا أنا ويديو أنا فاضمو إن أحمد الرادي فاضمو إبراهيم حسن فاضمو بلدتك بركعياشا كمت هاي سامين تيلك يا عذر COVID-19 أما كورونا فارس وإذا فيها شما دامة مريها بركعياشا كل شيء الحمد لله رب العالمين شكرا أنا فاضمو إبراهيم حسن بركعيال وانا هاي gacanaha ilmaha waa u dhaqanay raadiga ka maqan ka dhageysana adiga dad isku yimaado dadna ma isku tago waxyaalahaas oo dhan waa la soconay waayahay marka hadda bal fariimaha wacyigelinta sida u qaadataan oo u fulisaan wallahi saabuunaan qaadanay nadaafadan ku dadaalnay wasaqda waa iska ilaalinay wasaqda iska dhashtay faariska naftirkiisa waxa wasaqo dhan waa iska fageynay inuu ay kullu nadiifin badar lama siiyo badarka waa laga kuleeyay asoo laga kuleeyay lama siiyo qabowga hadii loo siiyo macnaha cudur aan ka imaahay waayahay waa santahay oo ku salaaw doona maxamed axmed raagi oo dadka baahiyaha gaarka qaba ka socda maxamed bal saameyn intee la eg buu cudurkan idinku yeeshay cudurkan horta sideeda sida saaxiibadooda u sheegeen waa hargab xoogaaway anagu waxaan dad muslimiina maadaama dad muslimiina aan nahayna ilaahay baa gargaar noo fidiyey oo diineed marka cudurka hadda laga hadlayo wax badan aan dhegaysanaa idaacadahan ka dhegaysanaa wacdigiisaan qaadanaa aad iyo aad baan u qaadanaa aniga kula hadlaaya waa igu dhaca waa arka safar baa ilaahay iiga dhiga dadka baahida gaarka qabana sidooda badanba guriyahayba ku oodan yihiinba badarba marka sababta ay tahay socodkoodu ma badna markii hadalladaas laga hadlay oo taxgirintaas la sheegay oo lala ballamay oo lala hadlay oo inay wasaqda iska dhaqaajiyaan oo gacnaha dhaqaan oo ilaa 20 daqiiqo ay gacantooda ay dhaqaan saabuun ku dhaqaan loo sheegay wacdigay qaateen COVID-19 aad iyo aad baa looga gaashaantay dadka Soomaaliyeedna dhagihiisa oo qabaa oo maqlaa woona qaataa Soomaalidana inta wax loo sheego oo qaadatay u horeysaa anagu maadaama aan dadka baahida gaarka aan qaba aan nahay waxaan isku taxadul jirnay inaan guryaha naga iska joogno isku wadno risaqada ilaahay baa baxsha
marka anoo gurigeyga jooga ayaan arko ugu dhaca sanka iyo afka iyo indhahan biyo ka keena waa caburma aniga dham marka inuu asaga yahay sidii looga sheekeeyahay saasaan u ogaaday guriga hargabsaf marahaanu ugu dhaca qofuu ku xoogaabay iyo qof uu aad ugu gaaftaba marka waxaa waaye asaga COVID-19 adduunkuu ka cabaadshay ilaahay baanse ka magan galnay ilaahay weynaayona abuurtaa ka magan galnay diinta ilaahay baan akhrisanaa ilaahay baan barinay markaan ilaahay barinayna ilaahay waxuu nooga dhiga safmar marka waa ku jiraa waddanka waa jiraa saakadaan dhegaysanaya idaacad ku taalla cadaado ayaan saaka ka dhegaysanaya dadka uu soo ritay aan ka hadlaayo marka meel kastaba markii uu ka dhaco waa lagu sheegaa inaad isxafido ood ka gaashaamatana xaqaad u leedahay oo nafsadaada ku dadaasho adduweyne waxuu ka cabaadayna waa nahayaan guryahan uga oodannahay marka ilaahay naga furdaamiyo oo naga baxsha aan ilaahay ka baryayna wasalaamu calaykum wamaasan tahay isaaq xaydar aqiila markan ku laabanaya sale isaaq waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sidee loogu hortegi karaa maadaama cudurkan uu yahay cudur safmareena in uu faafo cudurka maadaama aad tihiin dadka baahiyaha gaarka qaba inaad isu timaadaanna ay fududahay wallahi cudurkan anaga horta bulshada waxaan nahay islaamiya asalkii hore maartay axaadiisteena qur'aanka iyo axaadiista waxayna farayeen in nadaafadda lagu dadaalo runtii maaragtay cudurkan haddii nadaafadiisa la ilaaliyo oo tilmaamihii maxaa la jiray sheeg sida saxda ahayd loo qaato runtii cudurkan alxamdulillah waa laga badbaadayaa sida in maxaa la jiray maaskaradii la xirto maxaa la jiray gacmihii la gashado maxaa la jiray galoofiskii la gashado musqusha markii la galo gacmihii la iska mayro markii laga soo baxo cuntada intaan la cunin markii la cuno kadib maxaa la jiray nadaafadii lagu dadaalo biyo nadiifa aad hesho runtii waxay noqonaysaa maaragtay 100% inaad ka badbaado runtiina alxamdulillah juhdi badanaa la sameeyey oo maaragtay fariimihii iyo wixii maaragtay ayaa la qabtay maxaa la jiray shaqeynayna idaacadihii maxaa la jiray sida idaacada jowhar oo kale fariimad isdaba joog ayaa ka baxo maxaa la yiraahdaa ishaq cudbaahiyayaal jira magaalada inta lagu soo xirtay gawaari lagu baahiye maxaa la jiray ishaq cudurkii qaabkii looga hortagi lahaa shirkadihii isgaarsiinta sidoo kale waxay saarteen maxaa la jiray ishaq soo dhicitaankii dadkoo dhan wada saareen marka alxamdulillah waxaan ku dhihi lahaa ilaahay subxaana watacaala mahadiisa waaye runtii coronaviruskana maaragtay waa cudur maaragtay abid aanan arkin kaduudiyo waana soo maray cudurro kale oo daakalool kan wax ka xun ma arkin saamayn dhaqaale aad u baahsan oo keenay maaragtay aalaaba waxaan ku raaci lahaa dadka naafada ah waxay ku tirsan yihiin jaaliyadihii soomaaliya oo ay mararka qaar wax ka heli jireen oo maxaa la dhihi jiray shag wixii oo dhan waxay noqdeen wax ariiri noqdeen maaragtay qofkii asaga guri ku xiran goor ma wax ku soo diraya ama wax ka qaadanaysa ma ka helaysid marka alxamdulillah coronavirus waa cudur cajiib ah oo ilaahay subxaana watacaala waxa uu ogyahay kuwii ka sheekay allah nagu daro insha allah tacaala هذا ما سنتها إساق محمد عثمان نور أو سبق له يقانو أسنا برامج في غيبك محمد سيدا عذر كان لغور تيكرا فافتان كيسا ما دام بركة عياشة أي كام كجران أو كام كان دسك دقن أن أبنى هيني سودا وعدام بذي والله إنه عذر كان عذر حواي هدي أنا سنجرين بدولنا هدي سنجرين وانا عافماتك إلا قاطع ورطوع في عنواي هدان لقادا وحا الله بايا عذر كان وانا قاد دبر القوعي هدان واسوقعي انتون وحو بيسكر الجيستي او الهي والفدودي هدان الدنو واسوقعي صنعوده ولا حدكتاي kuwa qaldana waxay ku leeyihiin dadka islaamka ah kuma dhaco makiya madiino ninkaan wax ku lahay yaa ka qayr badan makiya madiino wax ku lahay waa cudur saf mareena ayuu ku yiri takhtarku wuxuu ku yiri afkaaga gacmahaaga indhahaada sankaaga ha isku dhaweeyeen ha istaabsiine qof ha taabane yaan lagu taabane anagu cariirigaasaan gallay ilaahay baalkaas waa noo fududeeyey haddana hadda soo kabiisi qaba yimiday marka meeshii ka bilow waaye dadka waxa aan leeyahay
in loo noqdo lana dabar tiro oo laysku dhowaan afka gacmaha waanada la qaato caafimaadka la qaato ayaga oo dadka u gargaarayo daaweynayo kii naqaska ku baxayo ay ayagii takhaatiirta ku laabeen marka waxaa fiican in wax la qaato dadkani hanti kaama rabaan waxaa lagu yidhi war ha u dhowaanin 2 mitir qofka ha u dhowaanin afkaaga iyo gacmahaadana nadiifi hadduu kugu dhaco gurigaaga ku xayiraaw 14 maalmood isbaxnaani qof walba waa loo sheegay dhigeeda lagu dhibcay laakiin fulintii ayaan jirin hala fuliyo talada caafimaadka saasaan leeyahay وما سنتها سبقلة وحكل عبنا يا محمد أحمد راي بل محمد سيدي عذر كان إليك أهانتي ذاتك بايع قارك طبعا سيقوى يجلسان وسكوك بسان عذر كان وهاليس يعني انت أنو أسفري كرنا وأسفرنا عذر كان ولا يمدها كدول قاضو قوس أتيكر يا مجر قف أتيكر يا مجرت dhibaatana waa horseeday oo dadka baahiyaha qaar ka qaba dadka qurbaha joogay ku xiraayeen aniga kula hadlaaya bilkayga waxa laga bixiyay qurbaha haddana waxba ima soo dhacaan imana yimaadaan sababtana waxa ugu wacan dadkii guryahayda ku oodayaan qof gurigoodan maxay ku qaban kartaa sida anagu aan guryaha hadda ugu odanay ayaguna ugu odan yihiin adduunka meeshay ka joogeen marka horta dhibaato waa midaas dhibaato naf la'aaneed waay wax ku soo gudbaya male wax laguma soo tuuri karo wax laguma qaban karo umadiyo kala ooda marka waxa waaye wax qabadkana haddii midda taqaadiirtu ay ka hadlaydo sidaadaas inaan wax u qabanno maahane wax kaloo samayn karna male intaan dadaali karna waa dadaalayna waxaan adiga gacnaha saabuunta ku dhaqa intaasoo daqiiqo ku dhaqa intaas cunto kululeeya intaas saas yeela iska dhaqaajiya qashinka wuxuu yidhi inta qashinku kuu jiro cudurku kuu jiraa war iska dhaqaaji nadaafadda ku dadaal marka taas waa yeelaynaa waa ku dadaalnaa waa ku hanuunsannahay annagu naafo waxaan nahay baahi gaara qabta waxaa nagu noqday wad iyo dhibaato nagu noqday wixii wax noo keeni lahaay ayuu naga ooda marka idaacadda waxaan ka baryaynaa oon ummadda ka baryaynaa waxqabadka iyo xooggale inay wax noo qabtaan dadkaas guryaha ku oodan oo baahida gaarkaa qaba ama qaxootiga ah oo meeshan hadda maanta idaacaddu isugu keentay oo warbixinta ay uga qaaday intaas aad warbixinta laga qaadeen ajir baad ku helaydaa xaqaad u leedihiin waxqabadkay ka mid taha waxaad u gudbinaysaan adduun weynaha sida adduun weynaha aad ugu gudbisanayna ayaan anakuna inkaga mahad celinaynaa maadaama aan nahay dadkii baahida gaara qabay oo meesha isugu kulmiseen qaxootigii iyo wixii baahida gaara qabay oo masaakiinta ahay dadaal baad samaydeen waad ku mahadsantihiin waan kaga mahad celinaynaa waxqabadkay ka mid tahay adduun weynuhuna ha maqlo ciddii wax u qaba lahayd ummadaasna haddii adinkaa dhigaha ugu shubaydaanba oo idaacadda dhigaha ugu shubaysa garabkiina allaha galo waan kugu ducaynaynaa ciddii wax u qabatana way u ducaynayaa covid-19 arada qarribay muslimnimo ayaan kaashanay oo qur-aankaasaan akhrisnaa ilaahay baan barinaa baryahaas ilaahay ayaan wax ku helnay marka waxaad yeelaysaan adinkuna waa dadaasheen waana mahadsantihiin garabkiina allaha galo waayahay bal marka dadkiina baahiyaha gaariga qaba mararka isku timaadaan oo kulamo aad leedihiin oo kale bal ma isfartaan inaad kala fogaataan oo aad kala dheerataan aad iyo aad marka horeba karantiilkaasaan samaynay marka dambana haddaan isu nimaano waxaa waaye waxaan isu jirsanaynaa cabaar si aanaan isu soo gaarin waa kala fogaanaynaa sidayna loola ballamay aan tixgelinaynaa oo taqaadiirtu ay noola hadashayo adduun weynuhu noola hadlayo dhigahaasaan ka shubanaynaa wax walbaba marka inaan naftanadaaba nagu qasbaydaba inaan dadaalkaa samayno naftu wixii dhibaayo waa ka dhaqaaqeen wixii laga wacdiyana waa qaadaneen marka waa qaadanay waa ku mahadsan yihiin taqaadiirtu waa ku mahadsan tahay adduun weynaha intay wax noo sheegto waa ku mahadsan tahay annagu cilmigaas waan qaadanay waana aan ku dadaalnay aad u mahadsan tahay isaaq xaydar aqiil aan ku laabanayaa isaaq cudurkan waa aragnay in saameyn uu ku yeeshay oo sanadkanba xajkii aan la xijin oo dadkii gudaha sacuudi jooga oo keliya ay xijiyeen
bal kala fogaashihiina loogu talagalay in masaajida loogu kala fogaado idinka dadkiina baahiyaha gaarka qaba markaad tagtaan masaajidada ma samaysan inaad kala fogaataan dadkase ma u sheegtaan inaad kala fogaataan aad iyo aad annaga waan tagnaa masaajidadii annagoo maaragtay maaskii xidhan gacmihii inoogu jiraan galoofiskii inoogu jiro dadkii intii aan naqaano is afahmayno waxaan dhahnaa war hala kala leexdo war hala kala fogaado dhowr mar ayaan ka istaagay masaajidada waxaa la yiri qaybo kamid ah oo ka sheegay waxaa la yiri problemkan cudurkan covid-19 in ilaahay subxaanahu wa tacaala naga dulqaado sidaan ay tahay sidii looga badbaadi karo sida dadkaba guud ahaanba ay maqlaayeen telefoon markaad dirsanayso waa aragtay waxaa saaran maaragtay fariintiisa saaran cudurka culayska uu leeyahay halkaasaa laga fahmi karaa maasha allah bulshadana aad ayay ugu baraarugsan yihiin min beled ilaa iyo baadiyo sidaasaa loogu wada digtoon yahay oo dadka afka iyo ugu wada xiran yahay oo gacmihiina waxaa la jiri galoofiskii ugu wada jiraa runtii alxamdulilah ilaahi subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh kuwii ka sheekay allah naga dhiga allah naga dulqaada coronavirus waa runtii cudur aan aragnay maxaa la jiri ii sheeg culayskiisa aan aragnay marka waxaa waaye dadkuna aaday maaragtay uga digtoon yihiin ilaahi subxaana wa tacaala naga dulqaado allahuma arina quwataka fa arina cafuka lena waa mahadsantahay isaaq faadumo ibraahim xasan oo barakacayaasha ka socota maxaa kula talinaysaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka barakacayaasha ee ku dhageysanaya in cudurkan saameyn uu leeyahay maxaa faraysaa oo fariina u diraysaa in ay kala fogaadaan oo ay maxaa la yidhahdaa cudurkan ka fajignaadaan waxaan u farayaa ummadda oo qaxootiga joogta inay macnaha kala dhaqaaqaan oo ay iskugu imaanin oo hadday iskugu yimaadaan macnaha ay kala fogaadaan oo la iskugu soo dhawaanin oo nadaafadana ku dadaalaan oo macnaha ilmaha markay yimaadaan oo nadaafiyaan oo gacanaha u nadiifiyaan oo nadaafada ku dadaalaan waa mahadsantahay subagle maadaama barakacayaasha ka mid tahay maxaa kula dardaarmaysaa dadka barakacayaasha cudurkan halis uu leeyahay oo uu soo laba kacleeyo liyo horta aqil walaalka xisiisiyey taleefankan markuu soo dhaco xanuun uu leeyahay nabarkii uu xisiisana waxaan wacay nimankan taleefanadan iska lahoo hormuud waxaan idhi iga qaad waxaan dad nin islaama tahay dhib waxay ugu filan raadiyaashe maraa la wada qaadaa u yidhi marka covid-19 ilaahay waa keenay ilaahay baa qaadayana cid kaloo qaadi kartaa ma jirto inta lagu filaay oo daawadiisa oo la sheegayna waa ka dhaqaaq ana u dhaqaaqin hana u dhowaan ka siko isnadaami gacmaha dhaq afka dhaq nin walbo waa sidii aayad qur-aana lagu dufriyaa qof walba waa maqlay dadkuna caqliga malaha marka barakacayaasha waxaan u sheegayaa inay cudurkan xaqiiqsadaan ilaahay xeradiisii maka iyo madiina dad ku laayay safmar waaye inaan la dhayalsan oo layska ilaaliyo ayaa loo baahan yahay dadku islaam waaye ilaaha u naxariisanaa ilaahay asaa ilaashanaa dadkiisa laakiin dadaalhowdu yidhi hala dadaalo sidaas ayaan waxaan leeyahay barakacayaasha marka cudurkan maadaama uusan daawo lahayn oo halisna uu yahay uuna soo laba kacleeyey barakacayaashana ay u nugul yihiin oo wasaaradii caafimaadka hirshabelle qalabkii loogu talagalay iyo waxaas aanan la geyn bal sidee idinka hadda ku dadaali kartaan oo aad cudurkaas in uu idin gaaro ama uu faafo aad ugu hortagi kartaan oo aad u sheegaysaa dadka barakacayaasha dadka barakacayaasha shalay qayb ka mida oo maaragtay biyaasa la yidhaah waa shaladan aan isugu yeeray anigoo hay-adda beexa maa la yidhaah kaashanaayo qalab yaray noo keentay way isugu yeeray abaftuubkaan siiyey saabuunaan soo bixiyey waxa la samaynaa iyo sida layska raba iyadoo muuqaala ay wada fiirsanaan 10 gabdhood aan soo taagay iyo biyihii gacmo dhaqaalka waa tusiyey waa shaladan wixii dhimo waa la tusinaa marka la shiraayo odayaasha iyo culummada meesha joogta iyo haddii wax la isweydiinayo 2 mitiraan isku jirsanaa dhulkaani intaan fadhiisano warka isla gaaro kala durugno
annagu sidaasaan ku wadnaa waxa aan qabno oo keliyahoo dhiba dadkii waa qaraar doon hadduu qaraar doonto waxa leeyahay annagu dharay dhaqaan waxaasay beledkay galaan gurigaa iga soo gelina iga siko geed waalna yimid iga sika ii soo gelin gurigee dadku fadhigay ku cayiban yihiin guryahay isaga jiraan bal saasna waa jirtaa cidda wax tari kartaa inay tarto adukuna gaarsiiyo idaacadda joorna gaarsiido saasna wayda ka rabnaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسحاق خير عقيل أيام مركن بنكي السنة جبدي برامج كان كلنا إسحاق بل محافرين وأفر سعادتك بحياها جارك غباء يبرشة كلا يكون يسمى اسمه دام حريص وياها عذرك. وما سنت هاي أولا نتحمل عنا إذا عدا شوها الراديو وأهو يدا محل جري إذا ورباهنيد ما أنت كجرت قبل كان حتى لو ماركت مهد هو يقدر هذا بيسلان أو برامج كان سوري جلسي أنا بلشدة يا بهذا جارك قبط جودها بلشدة كأنت هذا كلامه وحن لها ماركت تلمامها حل راعو ما أنتوا حقرسن مجران عذر كان وعذر حالي سواي ملايين أيو عالم ككلاي وحي حالي بيريد قلبات لقى الشيء قلت هذا كده سوالي ده أنا كسالة قادنا وحي كدعي رجعنا وحنا كنت كسالة قادنا وحي كدعي حجرة اليانية ما يمكن وحي كدعي أنا كنت كسالة قادنا عذر كان مسلم محل يجري مرحي انتبهوا ومصيبة عامة إلهي سبحانه وتعالى كان واتن إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسو كله سورة الأنفال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم قاسة واعلموا أن الله شديد العقاب كبقى فتنة دتك سمية القاس كن قلن كان بايس ومصيبة إلهي سبحانه وتعالى دتك الصادة فتنة أرلد كالسمايين كبقى رواية لكن مسلم يمحل جري شغال انت بوكل عكرا أن دكتوران إن دكتوران أو تلمامها يكهر تجا يمحل جري دعمه لا دقدو ولا كلا فوقادو محل جماسك اللي حرتو ما ركوا حكمة تصالح حداد دكتوراتك إن شاء الله أذن إلى سبحانه وتعالى وقبت بأذنها يا وحليها بوشوي يلا ضيال سن أدور كان وحرس كرتواي حدي ما رتلقوا وماشى الحقر أني شيء محل جري شيء سورة بيها القدر تعدلوا ما عملهن وكلا حالهن سيدا سوكر وعذر كان إنه قد دكتورادو محل جري شيء تلمامها الله راعه وشذا جهدي إددال أي موجيس أي كوبا وتكوبا لارك سنتين وحال الرا إلا السيلا بالعبن نكي انتبحي سوال نقضيوا مركا إن شاء الله تعالى الله نقبت بادي الله بلشو هل الدكتوراد إن شاء الله تعالى هذا ما سنتهي waxaa ku soo gabagabeyn doona maxamed axmed raage maxaa dadka ugu baaqaysaa dadka baahiyaha gaarka qaba in cudurkan halis uu yahayna la og yahay dadka waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed oo tiraada ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah maadaama dad muslimiin ay yihiin horta marka ugu horeysa tawxiidka uskadeen hana u sheegeen dadkooda cudurkan inuu yahay cudur mucjisa oo dhib badan oo ummadda kaafiyey oo wadamada dhan soo maray annaga Soomaaliyan haddaan nahay maadaama daawadiisii la laaya daawadii annagaaba ugu dhow daawada annagu waxaan ugu dhowna waa quraan waa diinta qofkii akhrista ilaahay baa u yasriya waxaan isfaraynaa oon isu sheegaynaa sida culamaa diinka ama maaragtay ay noo sheegeen culimada dhaqtareenka ah ee adduunka siday noo sheegeen inaan samayno oon raacno tilmaamahaasna la faraayo mobile haysataa coronavirus uu kugu bilaaba ma jira ma dhihi karno waa wax jira waa intaan ka hadlayay anaa baa arkaan ku yidhaahda gurigaygan kula oodmay indhihiyan biyo ka soo deeyey sankiyan biyo ka soo deeyey anigii feerihii ay caburmay sidii canugu yar aan xiiqa arbad lagugu durimaa wax kale laguma sii karo waxaan qaataa xabad kaniiniya oo bristimola tan markaan ku jooga 4 saacadood tukaba haddana cabaa 4 saacadood ilaahay iga shirbaxshay alxamdulillah shukr quraan asisaar daawo quraan ka weyn ma jirto marka annaga waxa ilaahay garma nagu siiyay diintannada
inaan dadaalno oo sida taqaadiirtu ay nafaraydo ama adduunka oo nafaraya aan raacnana waa ku qasbanna oo naftaan ugu qasbayda marka waxaan u sheegaynaa dadkanaga muslimiinta ah horta marka ugu horraysta qof walbay diinta cusko haddaada diinta cuskan wax kaloo haysata male kow marka labaad taqaadiirtu waxa ay kuu sheegayda qabso haddaadan qabsan oo aadan ticda raacin waa kuu dhammaata marka intii nagu dadaasha waa u ducaynaynaa waana mahadsan yihiin waxaan kusoo gebagabaynayaa sida oo kanora faris loo leeyaha waa maqlaydaane inaad is asturtaan ood isxafidaan oo aad adiga maaragtay aad kala dhaqaaqdaan ood adiga maaragtay aad isu dhooryoonaataan oo naftiina u dadaashaan ku dadaala intaasaan ku dardaarmay aad u mahadsan tahay guud ahaan dhegeystayaal waxaan jeclaynaa intaas kusoo gabagabeeyo barnaamijkii dooda cudurka COVID-19 aan kaga doodayna oo ay iska kaashanayeen hay-adda tufta nabadda ama Somali Beaceline iyo idaacadda Jowhar barnaamijku waxaa idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Ibrahim Jimcaale Amoore waxaana farsamada inoo joogay Axmed Shariif tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan lamida waxaa idinkaga tegaynaa sidaas nabadgelyo iyo qadad teleefanada oo aan furi doono insha Allah كما تكلم سنة بحسي تعدل 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 هيتابن ميل قراء هيتابن وجهك هيتابن ترتلو كما مربين تلابو جرسوتك كاكولين تابنا عيدو تغي تقول نفسها تبانو ترتلو كما مربين تلابو جرسوتك كاكولين عذردا بلادا وبكينا تبرشرا ماما مريم ايركول بولي كلينيك سنتر ماما مريم ايركول بولي كلينيك سنتر warwooyinka iyo ubadkooda inay helaan goob lagaga daweeyo xanuunada ay tabanayaan oo idil waxa markiiba uu istaagay dhaqaatiir aqoon-yahano isla markaana ka soo jeeda magaalada waxaana u diyaariyeen xarun caafimaad oo loogu magac daray Mama Marian Ercole Poly Clinic Center dhammaan dadweynaha ku dhaqan magaalada Jowhar waxa lagu wargelinayaa in Mama Marian Ercole Poly Clinic Center in bukaanada ay u hayaan fursad caafimaad oo ka faa'iideysi mudan kadib markii rugtaasi lagu soo kordhiyay kombiyuutarka uu ku jirta oo loo yaqaan ultrasound iyo sidoo kale kombiyuutarka kale ee loo yaqaan quantum magnetic machine oo dhakhtarka ka caawinaya una sahlaya inuu asiibo xanuunada jirka qofka bani'aadmiga isla markaana uu sawiraya waxa sidoo kale Mama Marian Ercole Poly Clinic Center aad ka helaysa shaybaar casri ah oo lagu baarayo dhammaan dhiigagga noocyadooda kala gedisan iyo waliba dhacaanada Mama Marian Ercole Poly Clinic Center waxa kale oo xaruntan lagu qabanaya hawlaha gudniinka wiilasha iyo gabdhaha gurigaaga lagu adeegayo waxaana sidoo kale maalinta jimcaha fursad ka faa'iideysi la siinaya caruurta agoonta ah hawlaha gudniinka lagu qabanayo si bilaash ah ama lacag la'aan ah Mama Marian Ercole Poly Clinic Center waxaad ka helaysaa dawooyinkii ugu dambeeyay ee lagu farsameeyay wadamada Europe, Germany, Turkiga, China, Ingiriiska, Jordan iyo Masar dawooyinkaasi dhamaantood waxay soo mareen quality control dhammaan dawooyinkaasi shaybaarka iyo kombiyuutarka waa lacag la'aan oo waxaad goosanaysaa lambarka dhakhtarka oo kaliya Mama Marian Ercole Poly Clinic Center waxa lagu sameeyaa qaliinada fudud sida burooyinka baabasiirka fiiskaraha intaba waa lagu qabanaya Mama Marian Ercole Poly Clinic Center xaruntan waxa kugu diyaar ah dhaqaatiir aqoon iyo way aragnimo u leh hawlaha caafimaadka ee ay qabanayaan waxaase intaas ku sii dheer in lambarka oo kaliya aad goosanayso daweynta kombiyuutarka iyo shaybaarka intaba waa lacag la'aan gooso lambarka dhakhtarka oo hel baaris dhameystiran iyo daweyn caafimaad oo lacag la'aan ah ma sha Allah saacadaha xaruntan Mama Marian Ercole Poly Clinic Center ay shaqeysaa waa 6 iyo barka subaxnimo ama 6 iyo 30 daqiiqo ilaa 12 fiidnimo Mama Marian Ercole Poly Clinic Center waxa ay ku taalaa ka soo horjeedka shiraamada Expo-stajadii hore ee tagaasida ee xaafadda Horseed wixii faahfaahin dheer waxaad kala xiriiri kartaa telefoonada kala ah Eberle Xalabo 28 87 ama Eberle Xarshan 53 12 49 horugaar oo amogan Mama Marian Ercole Poly Clinic Center oo dib u habeyn heer sare lagu sameeyay cudurrada dilaaga ubadkeena dabarshara dabayshay qaaxada jabeecada kasidaran hawdagin dalankee xarumaha u daadihi
kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada qaybta qadadka teleefanada barnaamijkii dooda ahaa oo iska kaashanayeen hay-adda Soomaali Peaceland ama tubta nabadda iyo idaacadda Jowhar. su-aasha toddobaadkan waxa ay tahay dhegeystayaal, sidee loo sii joogteyn karaa dadaalada ka hortagga cudurka coronavirus ama COVID-19? haddaba su-aasha waxa ay tahay dhegeystayaal, sidee loo sii joogteyn karaa dadaalada ka hortagga cudurka coronavirus ama COVID-19? dhegeystayaal waxaa naga soo wici kartaan furaha 2 furaha 2 ayaa naga soo wici kartaan meel walba aad joogtaan. dhegeystayaal su-aashana waxa ay tahay oo barnaamijka aan ku qaadaa dhigayno, sidee loo sii joogteyn karaa dadaalada ka hortagga cudurka coronavirus ama COVID-19? waxaa naga soo wici kartaan furaha 2 oo barnaamijka aad kaga soo qayb qaadan kartaan. dhegeystayaal waxa ay su-aashu tahay, sidee loo sii joogteyn karaa dadaalada ka hortagga cudurka coronavirus? haddaba waxaa naga soo wici kartaan furaha 2 ayaa barnaamijka nagala soo qayb qaadan kartaan. dhegeystayaal oo aad soo wici kartaan. barnaamijka waxaa farsameynaya axmed shariif, aniga maxamed ibraahim waa idinla socodsiinayaa qaybta qadadka teleefanada. dhegeystayaal su-aashu waxa ay tahay, sidee loo sii joogteyn karaa dadaalada ka hortagga cudurka COVID-19 ama coronavirus? dhegeystaha ugu horeeya ee qadka teleefonka ku jira ayaa siinayaa si uu fikirkiisa nala wadaago. halow, salaamu calaykum. halow, salaamu calaykum. وحاجات ديجيستيال ديجيستاش حفلة البرنامج كله صعون ديجيستاش وحنا نسوي كلام في الله لبوا طبعا شن أفرتني كوس ودنا سدح هي برنامج كان ولا سوق قاعدة ديجيستاش قد كفجر سينا يا هلا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلو ولا المجا عيال كجوتو. عند المجا هو عبد الله الحماوي هو حج وجور. هاي برنامج كروج الهدار ديجيستاش ولا. سيلو جتين كرا ديالنا cudurka corona virus loogu hortagayo. على واسطة إن عن دعم الجيل عليه السلام بس لازم قف corona virus أنا أجيال ماشى بالشدة ما لا بالشدة إشكال عليه بس علينا. هذه أنا أول سنة فكرة وسيلة ويايا dhegeystayaasha waxay naga soo wici karaan furaha 2 oo barnaamijka ay naga soo qayb qaadan karaan. furaha 2 ayay dhegeystayaashu nagala soo qayb qaadan karaan oo ay naga soo wici karaan. idaacadda Jowhar ayaa dhegeystayaal naga dhegeysanaysaan. furaha 2 ayaa barnaamijka nagala soo qayb qaadan kartaan. dhegeystayaal su-aashan waxay tahay, sidee loo sii wadi karaa dadaalada ama loo sii joogteyn karaa dadaalada looga hortagayo cudurka COVID-19 ama coronavirus? dhegeystaha qadka teleefonka ku jira siinayaa si uu nagala qayb qaato. halow, salaamu calaykum. soo dhawow, magacaaga halkaa joogto? waxaan ku noolnahay dowladda gololey magaala. magacaaga? asmaan diyaar. barnaamijka hore gal walaal haddaad dhegeysanaysa. barnaamijka waxaa ku sheegaa macnaha looga hortagi karaa qur-aanka kariimka. haye إن القرآن الله قصة بطل الدين إلى أقبله. ديات وما سنت فكرة وسؤال ولا يا رئيسها كله. هلا والسلام عليكم. سؤال ولا ما عيالها جوته. برنامج كورونا. أيه. ديات وما سنت فكرة وسؤال ولا يا رئيسها كله. هلا والسلام عليكم. هلا. ليس اسمح له ولا وانا كحنا اسم خلك عوجز ليس كلا خط كجرا اسم خلك هو دربدي با ليس احنا نسوي اكرام فراها اللبو تونيشن افرتني كوس دني سدح ليس خط كجرا. هلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سلو رجستي مغعايا يالكا جوجتو. مغعاي واحمد ولك برنامج كروغ ولا هذا دغيسنس برنامج على الصلاه عن كورونا فيروس على وقت كرا سبب واحد سبب هو فيروس كان وعن لود على نظافته يو والله وعيجلك أو ميديا إن هي ونوفر بديو أو معذرة على درجة نوفر بديو عياوش على وقتها. يا جماعة سنتا شكرا وسلونا يستاكر. هلا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلونا مع عيالك جوكتو. معاهم حميد. حاجة جوكتها. ويانا كونكو. هاي برنامج كورونا هذا اللي يسمى سؤال. حتى أنا فرحت لنا كورونا فيروس وحنا أنا وقفت الله إن الدين تينو
haye waa mahadsan tahay waanu kusoo dhaweynayaa fikirkaagana waa kaa mahadcelinayaa halow salaamu calaykum dhegeyste soo dhawow magacaaga halkaa joogto cabdiraxmaan barnaamijka hor u gal haye marka waxaan leedahay ilaahay quraanka aad iyo aad hamaasan tahay cabdiraxmaan dhegeystaha kale halow salaamu calaykum halow wacalaykum asalaam soo dhawow magacaaga halkaa joogto haye barnaamijka hor u gal walaal haddaa la socotay quraanka kariimka ayaan si joogtaan u farxadaynaa jidka ahre aad iyo aad aan ugu mahadsannahay inaan ka ilaalino aad iyo aad waa mahadsan tahay fikirkaagana soo dhaweynayaa dhegeystaha kala siinayaa halow salaamu calaykum soo dhawow magacaaga halkaa joogto haye barnaamijka hor u gal canshur haye aad iyo aad waa mahadsan tahay canshur sida barnaamijka nala qaatay waa kaaga mahadcelinayaa dhegeystayaasha waxay naga soo karaan furaha 2 furaha 2 ayay barnaamijka nagala soo qayb qaadan karaan dhegeystaha khadka ku jira siinayaa halow salaamu calaykum عليكم السلام سلام magacaaga halka joogto إنسان اسمح لنا نحفظنا نفس العبد والأصل مركزة لمستشفى ونسيهم سي برامج كان يقرأها قاعدة يعني إنسان هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم مجلسة سلام magacaaga halka joogto magacaaga halo saxi barnaamij furandal waa marka Allah ku farxanaanaka codadkaan ilaahay oo laga weydiisanayna ayaan tacaalina aad iyo aad wadaasanta saxi si barnaamijka la qaato ka imaad ilaa dhimsaashana waasin sida barnaamijka la qayb qaadanaya hadii jaraale dhimsaashana waxaa soo ekraan furaha 2 15 barnaamijka la qayb qaataan halo assalaamu calaykum سلام magacaaga halka joogto سلام خطلك يا ديستاس كلا هلا السلام عليكم سلام magacaaga halka joogto عبد الله محمد الشيخ نور بودادة والله نشكره قال قالوا فارس سيدنا لو غورتي كرا لو جوجتين كرا ديالله لو غورتي كنتي في صنع aad iyo aad waa mahadsantahay dhegeystaha kale halo assalaamu calaykum assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhawow magacaaga halka joogto horta kugaa dhegeystaha kale halo assalaamu calaykum عليكم ورحمة الله soo dhawow magacaaga halka joogto أيوة عنك وعمر barnaamijka rugal magacaaga loo raacay أيوة وحاك وحاك سوسيا خلال فارس وعليك مخلصة هذه واحد أوتر ايوه aad iyo aad waana mahadsantahay fikirkaagana soo dhaweynaya dhegeystaha kale halo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhawow magacaaga halka joogto walaal magacaygu waxaa yidhaahdaa muumin axmed bey abubakar xaggee joogtaa muumin waxaan joogaa raqayda camar guudle haye fikirkaaga nala wadaag cudurkan coronaviruska waxaa loogu horteegi karaa waxa weeye ugu horeysa horta meelaha bulshada oo yacni dadka ay ku badan yihiin inaad ka fogaato haddii aad yacni masaajida meelaha oo buuqa ah aroosyada haddii waa la sugan yahay in waxaas oo dhan aad ka dhaqaaqdo midda labaad farahaada inaad ka fiican iskaga nadiifiso waxaas oo dhan yacni waa muhiim midda maas waxaa sii dheer in waxyaabaha gacmaha iyo sanka lagu xadto aad isticmaasho
haddii aad dareentana waxyaabaha ingirka iyo hergabka iyo hasta aad yani gurigaaga isku haliso aad iyo aad saas ayaa laaga hortegi karaa waa mahadsan tahay muumin aad iyo aad waan kaga mahadcelinayaa dhegeystaha kale halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum soo dhawow walaal codkaaga kor u qaad magaca iyo halkaa joogto barnaamij kor u galnima haddaa dhegeysanaysa aad iyo aad nimc waa mahadsantahay fikirkaada waa soo dhaweynayaa sida barnaamijka laga qayb qaatan oo kaaga mahadcelinayaa dhegeystayaasha kale ayaa jaaniska siinayna iyadana waxaana dhegeystayaasha ay naga soo karaan furaha 2 15 41 63 furaha waa 2 15 41 63 ayuu dhegeystayaasha naga soo karaan dhegeystaha kale halo asalaamu calaykum soo dhawow magacaaga halkaa joogto wamaadsan tahay mar kale inaa ila soo xiriirtaa wanaagsan dhegeystaha kalaa siinayaa halo asalaamu calaykum soo dhawow magacaaga halkaa joogto halo codkaaga kor qaad walaal هذا الأستاذ أتيس أو سيا ويسافر هلا السلام عليكم سلو ما عيالك جبته برامج كرم على دار مسلسل عادي يا طبعا صنطة في الفرق سلوين وياه الأستاذ وماسية الأستاذ حنا نسوي إكرام فراح الله تبرشان أفرتني كون سدني سدح فراح الله تبرشان أفرتني كون سدني سدح أي الأستاذ نسوي إكرام الأستاذ حتى كجراء هلا السلام عليكم وعليكم السلام سلوين ما عيالك جبته برامج مرض المختار هذا هو في جرائد عامة كينا في يقرأ فيها ربط الشعب على حركة الساعة سيسكاد على ناقض عنا ناقض وزارة عامة سيحصل له في جرائد يا طبعا سنتها المختار في برامج لغاية وتفاعلات أنا يا هلا السلام عليكم سلوي ما عيالك جبته ما عيال برامج كورن جوار قرآن فرز وعالو بغاد جرائد الدين إلهي العصر وقرآن كلا بحصره آتيات وما سنتها ليستهك الهلا والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما عيالك جوته أنا عبد الله يحسن رجل واحد برامج فرج الأحمد حتى حوضعي وواسية ليستهك الهلا والسلام عليكم هلو ليستاسنا اسمح لي مني وحفلنا من برامج كسر عودونا ليستاشن وهاسي سيدي برامج كان يغراجب خامنا يان وحنا نسوي اكرام فرح الله تبرشن أفرتنين كون سدح سدح فرح الله تبرشن أفرتنين كون سدح سدح وهاسي ليستاشن سيدي برامج كان يغراجب خامنا يان ليستاشن وحاكا عسنا إن مركب برامج كان يسوي قران أي الاليان أنشح برامج كان ليستاشن وحنا نسوي كرتان فرح الله تبرشن أفرتنين كون سدح سدح ليستاخد كجر هلا والسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلو ليستمع عيالك جبته ما عيالك جبته يعني شرقل قرون فارس عنه ورسول كان ساعده كيف عنه تعالى من الرسول هذا هو لقدير الدنيا يا طبعا سنت إيساك على خط كجرة سينيا هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلو ليستمع عيالك جبته أنا أصعد رد بوجه برامج فرق الأحمد برامج وعلى ورسي كراء قرآن كائن أخذته وإلى إلا يعصره وأحكى له إباحة إلى كلمة جرام وطمية وطلاق يا طبعا سنت أحمد سي برامج وراها قاعد تقايمة قال يا بيستاشف ناسا وكرام فرح الله تبنشن أفرتنين كوس بن سدح فرح الله تبنشن أفرتنين كوس بن سدح أي بيستاشف ناسا وكرام وبرامج كان ناسا وقاعد كرام كهوي جرنا فرح الله تبنشن أفرتنين كوس بن سدح أي بيستاشف ناسا وقاعد كرام سؤال شفت دلوقتي من برامج waxay tahay sidee loo dardargelin karaa dagaalada lagu doonayo in loo warto cudurka coronavirus ama loo sii wadi karaa
haddaba sidee loo sii wadi karaa dadaalada lagu doonayo in laga hortago cudurka COVID-19 ama coronavirus oo adduunyada saameyn baan ku yeeshay sidee loo wadi karaa waxaana soo gaar kartaa dhegeystayaal furuhu 2-15-41-33 furaha waa 2-15-41-33 ayaa barnaamijkan nagala soo qayb qaadan kartaan dhegeystayaal meel walba waa joogtaan waxaan leenahay galab wanaagsan oo wacan dhegeystayaal idaacadda Jowhar Shabeellaha Dhexe Hirshabelle Soomaaliya ayaa naga dhegeysanaysaan sidoo loo wadi karaa ama loo dardargelin karaa dadaalada lagu doonayo in laga hortago cudurka COVID-19 haddaba dhegeystayaal waxaa naga soo kartaan furaha 2-15-41-33 oo idaacadda Jowhar aad kaga soo qayb qaadan kartaan barnaamijka dhegeystayaashana waa mahadsan yihiin waqtigooda ay noo horayaan iyo barnaamijka ay naga qayb qaadanayaan raadiyaha Jowhar ayaa dhegeystayaal naga socotaan فروه الله تقول السنة فرتني كوسة السبح بيستيال حاجة فريم الناس أدري إيه فريم هذا وآخرين دلنا برامج كا يعني فريم هذا وآخرين دلنا إيه تأخذ الجنة بيستيال إحنا نسوي كلام فروه الله تقول السنة فرتني كوسة السبح برامج كا لا يخاف خاطر إساقة الكجرة السنة يا هلا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال ما عيالك جبته. وعنده كذا عارف عشان ما شبه هي ما العادة القاضي الأخرى عثمان برنامج فرنج عبد القادر برنامج كهراء وكذا وعواوي كورونا خارج معاوي خارج أنا كريم بلاي لو بياجي هي بلاي لو هفضل بلاي لو هفضل أديت وأصل الدواني وعال الشيء ده واحد صار مرة كذا هو أنا أنا مش فاهم مرة إلهي لو ده إلهي آمن هذا هو كذا أديت كما سنت عبد القادر سي برنامج كهراء فاتو قائمة أنيا في سيشن نصيحين وقت ولا هرين وحنا نسوي هرتان إجتيال فرع الله وتغنيشن أفتنيكو سدح فرع الله وتغنيشن أفتنيكو سدح أيها برنامج كهراء وعلى هرتان إنسان السنة هلا السلام عليكم. عليكم السلام. سلمي ما عجلك جبته. والله أنا سمعي على جوا. ما عجل. بعد اسمه نمرو. برنامج كهراء محمد. كيف يعني؟ هي فكرة كاين. وفي عندي قرآن إلى الحكم المساجد إلى الوجه بسوا كون في على النفس. وأعرف يعني. marka sidee loo wadi karaa in looga hortago dagaalada lagu wadi karo in laga hortago cudurkaas waxaa lagu hortagayaa masaajidda tawo ilaa lagu tuugo midii kala dhigay loo qabo aad maxamed waa maasan tahay waqtiga aan loo hortago kaayna in la waa maasan dhigtaas idaacadda Jowhar ayaa dhegeystayaal lagu dhegeysanaysaa 89.5 megahertz faraha laga tago 4 ayaa dhegeystayaal laga soo furtaan oo barnaamijka laga soo qaadan kartaan dhegeystayaasha fariimaha loo soo diray ayaa fariimahooda marka loo akhriyaa dhegeystayaal waxay leeyahay assalaamu calaykum magacaygu waa Faxdi oo joogta xaafadda Horseed haddii fikirkayga dhiibto cudurka coronavirus waxaa looga hortagi karaa in la qaato wacyigelinta dhakhaatiirta ay bixinayaan iyo in la kala fogaado meel kasta oo la joogo walaastan tahay isaga kale waxa uu leeyahay assalaamu calaykum magacaygu xamdi oo joogta xaafadda Hantilaad haddii fikirkayga dhiibto cudurka coronavirus oo cudur halis ah bulshada ku nool Shabeellaha Dhexe waxaan dhihi lahaa in ay cudurkaas ka foojignaadaan oo kala fogaanshiyaha ay badiyaan aad iyo aad uga haystaa dhegeystayaashana wanaagsan barnaamijka laga qayb qaadanaya had iyo jeeraale waxaa dhegeystayaal laga soo gaartaan furaha 2-15-41-33 furaha 2-15-41-33 ayaa laga soo gaartaan dhegeystaha khadka ku jira halo assalaamu calaykum halo dhegeyste aqoon dhegeystayaal isma xalwale waxa filan inuu ku soo laaban doono inta ku jirno barnaamijka furaha 2-15-41-33 ayaa barnaamijka soo gaartaa dhegeystayaal furaha 2-15-41-33 fariimaha ayaa markan dib u sii raacayay dhegeystaha waxa uu leeyahay assalaamu calaykum magacaygu waa Axmed oo jooga xaafadda Buulasheekh haddii fikirkayga ka hadlo cudurka coronavirus waa cudur halis ah walaashin dhegeystaha khadka telefoonka ku jira durbadiiba uu ku gaadhaysaasay waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan waxaan intaas kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii dooda ahaa ee looga hadlayay saameynta cudurka COVID-19 waxaana barnaamijka dhegeysanaysan idaacadda Jowhar waxaana barnaamijka iska kaashanaya hay'adda Tubta Nabadda iyo idaacadda Jowhar tan inta ku kulmi doona barnaamijkan lamid ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
horseed motor vehicle saddex agooleedeydii mootogaariyadeedii iyo motooradii waraabka intaba way iga ciladoobeen qalabkii lagu sameyn lahaana lagama helayo halkan kuwa cusubna waa rabee aku ciil badana war aniguba faranjeer iyo qasaalad casri ah oo baan rabee caasimadeena Hirshabeelle ma laga helayaa waryaa ii caarifayo aku ciil badana war haade aniguba cidii bay cilad iga haysataa oo agabkii Ramadaanka la isticmaali lahaa ayaan laga helayn halkan halkeen ka raadshaa aku ciil badana cabashadiina waan garto caad igama saarna carwo aad ku ciil baxdaan idinkana caawinaysa baahiyihiina caasimadeena Hirshabeelle bay ku taalaayo aan idin cadeeye waa carwo horseed motor vehicle carwo horseed motor vehicle agabka aad ka helaysaan waxaa kamid ah motor jangava iyo bamkiisa oo lagu waraabiyo biyaha motor gaari Fecon motor gaari Fecon motor gaari Kinogo motor Fecon dhexgod ah motor LTM dhexgod ah motor Kinego dhexgod ah motor Fecon gaari motor Fecon dhexgod ah motor Kinogo gaari motor Heti gaari Frontier LG ah sidoo kale Frontier Sharif qasaalad LG Supermax oo qasaalad ah iyo qasaalad Nikura Frontier Jeep Omega makiinadaha lagu shiido cabitaanada iyo khudaarta sida Nika Malakis iyo Faransa oo original ah carwo horseed motor vehicle waxa aad ka helaysaa bir canjeero oo koronto ku shaqeynaysa birta doolshaha oo koronto ku shaqeynaysa birta rootiga oo koronto ku shaqeynaysa iyo sidoo kale tarmuuska shaaha lagu shubto oo koronto ku shaqeynaya birta hilibka lagu shiido oo koronto ku shaqeynaysa DVD Sony original iyo sidoo kale waxa aad ka helaysaa farsayaal mootogaari iyo sidoo kale mashiinka doorada lagu dubo waxa kale oo aan ka marnayn kululeysada oo 24 saac cunada ka qaboojinaynin sidoo kale waxaad ka helaysaa carwarseed gaariyada caruurta baaskiilada caruurta sad beeshinka ciyaalka fashionka amruuxadaha istaaga iyo fadhiga jiko dhuxul sidoo kale carwarseed motor vehicle qalabka ka helaysa waxaa kamid ah dhaladarbi LG Samsung Dolonakura TSL iyo Jibos samacadaha jaamka lagu ciyaaro waaweyn iyo yar ayaa ka helaysaa qalabka qasaaladaha qalabka moto bajaajka iyo waliba alaabta ciid ee caruurta ayaa ku haya carwo horseed waxa ka helaysaa sidoo kale mobile machine proof waa mobilka marka shaashada lagu saarayo oo ah mid proof ah oo aan ka jabaynin mobilada sidoo kale waxa ka helaysaa Samsung A20s A30s A2 Core M30s A70 oo tayo leh motor generatorna waa ka helaysaa iyo nal spotter casri ah sidoo kale waxa aad ka helaysaa sharaxaada mootooyinka oo casri ah sidoo kale waxaana meesha ka barneen saacad al-Haramayn fashion ah iyo saacado kale oo casri ah oo ay ku jirto saacad al-Fajri carwo horseed waxa ay ku taalaa suuqa weyn ee hanti wadaag bartamaha daarta ama taanaha waxay faahfaahinayaan intaasi dheer waxaa kala xiriiri kartaa telefoon nambarada kale ah eber 5 7 7 9 9 94 eber 8 7 7